السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته soo dhawaada barnaamijkeenan maanta insha allahu tacaala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wararkii ugu dambeeyey oo hadda daawaha laga soo qaaday oo ku saabsan arrimaha soo galootiga iyo immigrationka dalka maraykanka aan ku bilaaba waxaa shalay oo maalinku uu ahaa jimce soo baxay go'aankaas oo ka soo baxay maxkamadda raacfaanka ee federaaliga ah ee saldhigeedu uu yahay Washington DC. maxkamaddan ayaa waxa ay soo saartay go'aan ka dhan ah go'aamadii horey uu u qaatay madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump. go'aankan maxkamadda ay qaadatay ayaa waxa uu ku salaysan yahay digreetooyin ka tirsan digreetooyinkii faraha badnaa ee uu madaxweynaha saxiixay maalinkii ugu horreysay oo uu xafiiska la wareegay oo loo dhaariyey oo ahayd January 20keedii bishii sanadkii 2025. fikradaas waxay ahayd in uu madaxweynaha ku joojiyo wax kasta oo ku saabsan dadka magangelya doonka ah oo ka soo gudbayo xuduudda Mexico. So derbi kabood oo dhan maalinkaas ayuu madaxweynaha digreeto ka soo saaray xuduudina ay noqotay meel cidla ah. haddaba arrinkaas maxkamad ayaa hoose ayaa go'aan ka gaartay oo tiri madaxweynaha dalka maraykanka awood uma laha in isaga keligii go'aan intuu iska qaato uu joojiyo barnaamijkan. sida wada ogtihiinba barnaamijkan magangelya doonka in dadka loo ogolaado waxaa keenay marka horeba soo saaray Congress-ka aqalka hoose ee dalka maraykanka. sharci dejiyaasha dalka maraykanka ayaa marka hore soo saaray go'aanka waxayna ka dhigeen xuquuq qofka uu leeyahay ama ha loo ogolaado oo ha la siiyo magangelya doonnimada uu raadinayo ama ha loo diiday markii hore go'aankaas waxaa iska lahaa oo soo saaray Congress-ka. haddaba maxkamaddan iyo maxkamaddii ka hooseysayba tan maadaama ay tahay tii raacfaanka waxa ay ku doodayaan in go'aanka saxda ah uu iska leeyahay Congress-ka aqalka hoose ee dalka maraykanka aysan lahayn madaxweynaha dalka maraykanka. haddaba go'aankii isaga ahaa madaxweynaha iyo xertiisa Trump ayaa waxay la aadeen maxkamaddan raacfaanka oo ay sheegeen iyaga oo ku andacoonayay in maxkamadda hoose ay si wax u qaladay. maxkamaddii labaad oo ay aadeenna waxa ay ku qasabtay in ama ay ku raacday go'aankii in maxkamaddii hoose ay saxsanayd oo ahayd in dadka shacabka ah ama dadka masaakiinta ah ama dadka soo galootiga ah ee qaxootiga ah iyo dadka ka soo cararayo dhibaatooyinka ka jira dalkooda aan loo diidi karin inay dalka maraykanka ka codsadaan asylum ama magangelya doon. haddaba tan ma waxay ka dhigan tahay xuduudda in dib loo furay oo la iska soo xaroonayo sidii waagi dhaweyto kama dhigna. go'aankan waxay shalay maxkamadda markay soo saartay waxa ay ku xijisay go'aankan wuxuu dhaqan gelayaa markii la waayo cid ka soo horjeeda. sida wada ogtihiinba isla markiiba Caroline Leavitt afhayeenka aqalka cad ayaa go'aankan ka hadashay waxaana ay sheegtay in xaakimyada meesha jooga ay siyaasadda xaggeeda wax ka fiirinayaan oo aysan ka fiirinaynin bini'aadanimada iyo dalka maraykanka waxa u wanaagsan. taasoo ka dhigan in ay diyaar u yihiin inay challenge gareeyaan oo ay ka soo horjeestaan go'aanka maxkamadda ay gaartay. marka laakiin haddeer waxa ugu dhow oo u dhiman keliya wuxuu noqonayaa in la aado maxkamadda ugu sarreysa dalka maraykanka haddii go'aanka intay raacfaan ka qaataan iyaga naftooda dowladda ay ku qanci waayaan go'aanka mar kale ka soo baxa maxkamadda raacfaanka. meeshaas iyada ah waxaa ka soo baxaysa in sharciga dalka maraykanka uu shaqaynayo. maxkamadaha ayaa iyagu awood waxay u leeyihiin inay gacmaha ka qabtaan sharciga haddii ay jebiyaan madaxweynaha iyo sidoo kale Congress-ka intaba. marka arrinkaa isaga ah shalay casar liiqi ayuu soo baxay waxaana maxkamaddaas ay isku raacday 2 jaaj iyo hal ay ugu codeysay in sharci darre ay tahay in madaxweynaha uu ka joojiyo dadka magangelya doonka ah oo raba inay derbiga ka soo boodaan iyaga oo ka cabanayo dhibaatooyin dalkoodii ka jira inaan loo diidi karin. haddaba waxaa kale oo go'aankan aad iyo aad u soo dhoweeyey dadka immigrationka arrimaha soo galootiga iyo u dooda dadka soo galootiga ah oo immigration advocates baa la yidhaahdaa. dadka u dooda arrimahaas ayaa aad iyo aad u soo dhoweeyey oo iyaguna go'aankaas ku farxay ha yeeshee go'aan ku dhammaan doona
maxkamadan apiilka ama maxkamadda racfaanka uma eka. aqalka cad wuxuu ku doodayaa in madaxweyne Trump iyo xertiisaba ay xaq u leeyihiin inay awoodna ay u leeyihiin oo ay awoodaha madaxweynaha ay ka mid tahay in digreeto noocana uu soo saari karo. marka qodobkaas haddaan halkaas uga gudbo, qodobka labaad oo aan rabo inaan idinku daro waxa weeye daraad hore waxaa soo baxday New York Times journalka la yidhaahdo ayaa wuxuu soo saaray in dowladda Maraykanka ee federaalka ah ay ku daba jirto magacyadoodana ay soo bandhigtay ama ay u gudbisayba hay-adihii ay qusaysay arrimaha immigrationka in dad 384 qof ah la rabo in sharciga lagala laabto. sharciga markaan idhaahdo ma aha green card oo deganaansho rasmiya ma aha ki yaraayo I-94 ahaa. waxaan ka hadlaynaa waa immigrationka. waxa laga hadlayo waxa waaye dadka dhalashada Maraykanka qaatay oo citizenshipka qaatay baa la rabaa in lagala laabto. sidii aan horey idinku sheegayba 1990kii ilaa 2017kii xilligaas oo madaxweyne Trump uu madaxweyne noqday waxaa dhici jirtay in shaki la geliyo kaliya 11 case oo dowladda federaalka ay u soo gudbin jirtay in sharciga lagala laabto dadkaas maadaama ay ka shakisanayd inay si qaldan wax ku qaateen. laakiin waayadan dambe waxaa soo baxday sanadkan keliya ayaa waxaa Maraykanka uu filayaa 384 qof in dhalashada naturalizationka ah oo ay qaateen Maraykanka lagala laabto. marka 384 qof waxaan raadiyey sababaha keeni kara qofka in lagala laabto sharciga oo waxa ay ku maageen hadeer iyo kaysaskan baaritaanka ay ku hayso waaxda cadaaladda Department of Justice ee dalkan Maraykanka. 384 qof waxaa loo soo gudbiyey hay-adihii ay qusaysay si sharciyadda loogala laabto. sharciyadan arrinkan kala laabashada iyo baaritaanada ay samaynayaan ayaa waxa ay ku salaysan yihiin dadka waxay yidhaahdeen sida qaldan oo fraudka ah ama guur qaldan oo hoosay ah ku qaato oo niman aad wax cidiyaha hoostooda wax ka baarayo waaye, ama si kale ha ku qaatay oo dadka fraudka ku qaatay oo sida sharci darrada ah ku qaatay sharciga. waa kow dadkaas waxa ay galayaan dadka lagala laabanayo. midda labaad waxa ay yidhaahdeen dadka iyaga qof aan ahayn iska soo dhigay oo kale misrepresentation wixii ay ahaayeen wax ka duwan wax ku sheegtay oo arrimo adiga shaki ay ka qabaan dowladda Maraykanka wax ku qaatay. dadkaasna waxaa la dhahaa misrepresentation inaad waxaadan ahayn iska dhigto. arrinka isaga ah iyagana waa lagu daba jiraa. dadka kale oo ay soo qaateen waa dadka dembiyada leh sida ay sheegeen iyo dadka daroogada iyo waxaas lagu qabtay oo dembiyada waaweyn galay. dadkaas iyaga ah waxay sheegeen in iyagana ay ka mid yihiin dadka ay rabaan inay kala laabtaan. dad waxaa intaas kaleba dheer oo jira dad ay ku eedeeyeen dowladda si hoose inkastoo si official ah oo maxkamad aan loo keenin inay la shaqeeyaan qolyahan ay ku magacaabaan argagixisada iyo waxyaabaha noocaasa. marka dadka iyaga ah waxay sheegeen iyagana inay ka mid yihiin dadka lagu xiriirinayo in howlaha noocaasa ay ka qayb qaadanayaan in iyagana sharciga lagala noqonayo. marka 384 case oo hadda dhalasho haysta oo dalka Maraykanka ka qaatay dhalasho ayaa waxa ay rajaynayaan oo ay ku daba jiraan in ay kala noqdaan dhalashada. marka arrinkaasna uu soo kordhay oo nin walba falaartii cirka loo tuuray loo ganay nin walba filo ayaa ka socota. shaki badan ayaa jira. dad fara badan ayaa maaragtay ilaa number aad u fara badan weeye 90kii ilaa 2017kii 10 case oo kale baa sanadkii baaritaan lagu samayn jiray oo la hubin jiray. laakiin haddeer waxa ay u eg tahay in intaas ka badinayaan maamulkan iyaga ujeedka ugu dambeeya oo ay ka leeyihiin ay tahay in dad fara badan ay kala noqdaan sharciga. dadka u dooda marka dadka soo galootiga ah iyo hay-adaha sida kuwa kaniisadaha iyo qolyahan kale oo advocateska u dooda soo galootiga ayaa iyagu waxa ay ku doodayaan in ay dhici karto in arrimaha la siyaasadeeyey oo sharciga dadka loogala laabto. arrimahaas iyo arrimo ka fara badan baa ka jira. 384 qof kulley waxaa laga yaabaa in
already uu soo gaaray notice oo ogeysiis in sharciga lagala laaban rabo. midda kale dowladda federaalka ah waa in ay caddaysaa maxkamaddana ay timaadaa oo ay qofka sharciga lagala laabanayo wax fudud ma aha, waqti badan bay qaadataa, waxaa lawyer baa qabsan kartaa, doodo badan ayaa inay ka dhacaan bay tahay. So it's gonna take long time bay qaadanaysaa, waqti waxaas ka fudud ma noqonayso, iyo challenge adag oo maxkamadaha dhexdooda ah ayaa ka imaanaya, waa wax laiska yaqaano oo caadi ah. arrinkaas marka wuu socdaa, nin walbo wadnuhu farta ku hayaa, waa la cabsanaya. dee dadka keligeenna ma aha, dad fara badan oo ay qolyaha daroogada iyo waxaa iibiya oo Mexico iyo meelaha ka imaaday ay ku linka garaynayaan. dad waxaa jiro ay gangs iyo waxyaabahaas oo ku linka garaynayaan oo ay la xiriirinayaan oo El Salvador iyo meelahaas ka imaaday. dad fara badan baa jira oo meelo badan ka kala imaaday. marka arrimahan iyagana way socdaan oo dadka dhalashada in lagala laabto baa goolka u dambeeya uu yahay. waxaan idinku darayaa maxkamadda markii la yimaado ama dowladda federaalka maxkamadda ay timaado, waxaa keliya haddii kayska uu yahay case civil ah oo aan xabsi keenaynin oo criminal aan ahayn, kayska in ay proof gareeyaan 51% keliya ayaa laga rabaa. sidoo kale inay lawyer kuu qabtaan ama lawyer free ah avocate ay ku siiyaan loogama baahna. sharciyan hadduu civil caseka yahay wuu fududahay in ay qofka proofka caddayntana waa u fududahay, 51% probability baa la yidhaahdaa. sidoo kale inay lawyer kuu qabtaan oo maadaama aadan xabsi aadaynin, arrinkaas way u fududahay. tan kale waxa uu yahay ama sheekadu markii ay civil ah ee dowladda kuu suud garayso oo kaa daba timaado, dhalashada marka lagaala laabanayo, marka lagaa soo celiyo naturalizationkii ama passportkii ay certificate-kii lagaa qaato, waxaa ku noqonaysaa automatically, waxaa ku noqonaysaa meeshii hore aa u joogtay oo ah tallaabooyinka waa naqaanaa. de qof intuu Maraykan iska imaado iska qaato dhalasho ma jiro. waa qofka waa inuu soo maraa green card, permanent residency, green card inuu soo maro waaye. so green cardkii bay dib kugu soo celinayaan, hal step bay hoos kuu soo dhigayaan. sida ay haddeer ka shaqaynayaan arrinka noocaasa ayaa isagana immigrationka ka soo kordhay dalka Maraykanka. marka qaybta hore dowladda federaalka ah ee Maraykanka waxaa loo sheegay, madaxweynahana loo sheegay in digreeto uu soo saaray, uu go'aan intuu iska qaato uusan oran karin qof derbiga ka soo boodi karo ma jiro, uusan oran karin qof isdhiibi kara oo magangelyo doon weydiisan kara ma jiro. arrinkan rajab wuxuu geliyey dad fara badan oo Mexico iyagoo xuduudda aan ka soo gudbin ay ku xirantay, madaxweynahana la dhaariyey, warqaddii digreetada ahaydna uu saxiixay, sidaasna xuduudda lagu xiray. marka arrinkaa isaga ah waxay rabaan inay apiil ka qaataan oo racfaan ka qaataan. racfaankii ugu horreeyey waa maxkamadda hadda idin sheegaya, racfaanka way ku khasaareen. racfaanka labaad oo ay qaadan karaan haddii go'aanka ay ku qanci waayaan, arrinkanna uu dhaqan galo, wuxuu noqonayaa in ay la aadaan maxkamadda ugu sarreysa dalka US Supreme Court-ka. marka arrinkaasna waa uu jiraa. dadkaas 384 qof ah oo case oo dhalashada hadda haysta oo baaritaan lagu samaynayo, ujeedka iyo goolka u dambeeyana uu yahay inay ka qaataan dhalashada oo ay hoos u soo celiyaanna, arrinkaasna wuu jiraa. marka labadaas arrin baa immigrationka dalka Maraykanka ka cusub. so far haddeer meelo markaan idinsii taabto, meelo fara badan oo waxaa jira oo looga guulaystay. waxaa ka mid ahayd programkii kumeel gaarka ahaa ee TPS-ka oo Soomaalida la rabay in lagala laabto oo maxkamadda ay diiday oo looga guulaystay maamulka. tii kale oo waxaa ka mid ahayd Ethiopiaanka, dadka baasboorka Ethiopiaanka haysta oo TPS-ka iyagana programkii kumeel gaarka ahayd joogitaanka dalkan, iyagana intii lagala noqday ilaa 5,000 6,000 oo qof ay wajahaysay in la tarxiilo oo iyadana maxkamad ay hor istaagtay. waxaa ka mid ahaa kuwii Haiti oo iyagana TPS-ka lagala laabtay. waddanka Haiti nabadba ma aha bay yidhahdeen maxkamadaha. marka maxkamadaha dalka Maraykanka ayaa waxaa moodaa inay howlo adag ay kaga jiraan oo shaqooyin ay ka wadaan arrimaha socda oo xagga soo galootiga iyo sidii maamulka ay gacanta uga qaban lahaayeen waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo waxaysan xaqa u lahayn, iyo sidoo kale in maadaama haddeer ay ciidag iyo dhaastiga kala degtay,
waxa ay diyaar u yihiin inay challenge la galaan maamulka. Maalmihii hore uu cusbaa seefta galka bannaankay ahayd, wuxuu samaynayay warqado digreetooyin isdaba socda ayuu soo saarayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkaasna shakigaasna uu jiro oo hadda 380 qofna la rabo in lagala noqdo dhalashada sida New York Times iyo kulli ay sheegayaan, oo already loo gudbiyey waaxda cadaaladda, iyo in arrinkan uu ka soo kordhay dadkii darbika boodka ahaa isdhiibayey ama qofka inaan loo diidi karin lagana hor istaagi karin inuu magangelyo doon uu dalbado. Marka maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaynaa livekan. waa mahadsantihiin asxaabta dhammaan igala soo qayb gashay barnaamijkan. waa idin salaamahayaa. haddaad nagu cusub tahay subscribe, haddaa hore noola joogtay like and share noo saar hadduu ilaahay idmo. sidoo kale haddii uu ku dhaafay programka oo gadaal ah ka soo gaartay channelka waa ka daawan kartaa Kista TV insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.